dhageystayaal maalintii labaad ayay isku dhaceen fanaaniinta qaranka iyo xukuumadda waxaana saaka xabsiga loo taxaabay fanaaniin aad u tiro badan. fanaaniintan oo saacado kadib xorriyadooda dib u helay ayaa u sheegay Hadwanaag News in ay soo gaadheen jugo isla markaana ciidamada boolisku ay si arxan darro ah ula dhaqmeen. iska horimaadka xukuumadda iyo fanaaniinta qaranka ayaa ka dhashay ama dabada ku haya kadib markii dhismaha xarunta hidaha iyo dhaqanka ee wasaaradda ciyaaraha hoos tagta lagu wargeliyay in dib u habeyn lagu sameynayo isla markaana wasaaraddu ay u soo guurayso. ugu horeyn Run Xaddi Saban oo aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa sheegtay in ay ilaa hadda la yaaban yihiin waxa ay xukuumaddu gacanta adag ugu qabatay fanaaniinta qaranka Somaliland. Run waxay xustay in ay tuuga badan la soo gaarsiiyay fanaaniinta waxaana dhageystay hadaladeedii ka mid ahaa. waadiga markaya anagu inaanu xabeebsanahay wala nalaayay maanta gulayskii dawladda iyo madaxdii oo wada socda kabaha nala dulmaro aniga waxaan kugu yiri adigu anoo macaan qaba afka nabad bay kaga yaala saldhiga dhexdiisa ama xidhan baa la dilay garab nabad bay kaga yaala wala nalaayay waana la naxirxiray dhibaatooyin badanna waanu qabnaa dad aamusayo intaa ku tagayana manina ma runay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha shalay wareystay wuxuu sheegay wasaaradda la karkaray isla markaana lidii warjeed dhinaca wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka oo hadda laga bilaabo xaggaasi ku tirsaneedeen cid nala hadashay cid wax noo sheegtay ma jirtee maanta wasiirkii warfaafintu annagoo xidhan noogu yimid saldhiga dhexe wuu na soo daayay maanta ka hor cid nala hadashay ma jirto maanta marka maxaa la yidhi waxbala nama oran horta la soo daayay buu yidhi markii la soo daayana waynu isku imanaynaa iska taga buu nagu yidhi. dhinaca kale dhageystayaal fanaanada caanka ee Saara Cali Xasan oo iyaduna ku jirtay fanaaniintii saaka xabsiga loo taxaabay ayaa xustay in jugo aad u laxaad la soo gaarsiiyay. Saara Cali Xasan waxa ay carabka ku dhafatay in aan ilaa hadda garanaynin sababta ay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hagardaamada intaasi leeg ay u soo gaarsiinayso fanaaniintii qaranka Somaliland. waxaana dhageystay hadaladeedii ka mid ahaa. waxaan ku yiri maanta waxa lagu dhacay waxaan laga sheekeyn karaa dowladda fanaaniinta Somaliland waxaana loo taxaabay xilliga weyn Hargeysa iyadoo bil xabsiga dhexe makarayee saldhiga dhexe ayaa loo taxaabay annagoo aan lix fanaan dil iyo jibdilna lagu sameeyey ma garatay waan gartay annagu waxba maanu ogeyn fanaaniinta haddaan nahay guryaheedoo dhan waa la qaatay waxaan ku yidhi imikuman baraarugna ma garatay waan gartay xukuumadda waxaanu leenahay haddaanay hore noo ogeyn haddaan fanaaniinta nahay imika waxaanu samaynaynaa oo aanu ku qasbanay inaanu hadallo heesna waanu qaadanaa cusub haddii aan la yidhaha haddaan xasigan aan u fadhino Farun Saado Cali Xasan waxaa sheegaya in adiga nabar ay ku soo gaareen nabarada soo gaadhay dadka muusha ka inta ay leeyihiin waan u sheegi karaa ninka haysta saldhiga dhexe ee la yidhaahdo diinqal ayaa aniga wuxuu igu dhuftay feerjilid beerka igaga dhuftay waxaan kuri beerku wii barashan yahay waxaan lahaa Jones baan lahaa hadda basteedana waan jiifaa ubax daayir mobilkeediina wuu xaday oo wax xaqiiqa maka ruunaas ku goosto dibinta dhiigisa macaana way la dhiikar dadna dhiigga baa ku kacay waxa kala jiitay 10 askari ayaa kala jiitay. Ismaan Aw Xasan Almis oo isna kamid ah fanaaniintii saaka ay ciidamada booliska Somaliland xabsiga ku taxaabeen ayaa Hadwanaag News uga waramay waxyaabihii dhacay waxaanu yiri ila dagaalamay dalcana iska toqay ugu soo buuqeen xoogdan ayaga iska difaacay ma galasa ka gaarigay saareen hada saldhiga la qaaday marka ما قالت وكحوق إذا وين ما السكوت دفاع حبايب ما دقنا ده واحد عركة أحسن لا يلا طبعا الليل حوق ده قاعد سكوت دفاع حوق كان سكوت ما قالت هي لكن قبلها قام حنبا كل حيوان كاي صحن بالله قال قبلها ان المسو ان شلي باي مركب اوريسه هيدا ان فلانين بدن ان صليق دحل geeyo in maanta maxaa soo celiyay en rabshadii shalay yaa في alaabta noo taale aan ku shaqeynaynin oo shalay baan ku wada hadalada ku yiraahdo kan naga taabanay anaga leh haye kabacdi waxay yiraahdeen
aqalka dawladda la waanu furfurana anaga duminayni maxaa samayn kartaa waan gartay arrinta halkaas meel istaagna ma nahayntii imaka horta waxa la doonay markaa wixii xaqiiqa in laga hadlo meel cidlaan taaganahay hadda waxa lagu wareejiyay wasaaradda waxa fanaaniinta dhan loo wareejiyay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka waan gartay waxaa sababay in halkii ka soo deganaataan ilaa wasaaradda baa idin rabaa in dikulu wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ka tirsan wadaagsantahay wasaaradda waan tagnaa anagu haye annaga iyo magacyadoo lugeynaya magacyada iyo dadkoo lugeynaya tagi haye inta kolkaan soo galnay meesha tagna waxaan ku xaggan fadhiisanaa waan gartay waxa la qaybtana TV-ga ku shaqeeyo qaybtana idaacadda aqalka ilaahay idin sameeyaan waxa kana aqalka kuma haynayaan haye horta halkaasanu gacanta kala soo baxno ka soo buudo kolkaa waxaanu ka damqanaynaa taariikhmada laga dagaalama taariikhmada birimageydadii qablihii nugulka ahaada ee asaha كل حدية صعبانية بهرت ما رسنت هرتين خام يرفق متوم ما أركين أنت هرتين من كسرنا مع يوم ولي ما نودي منيني هذا ما قالتين وحي خلاص وحي دمبك صباح أنا ميجي هين كول حريري degan nuur xuseen oo iyaduna ka mid ahay fanaaniintii saaka xabsiga la dhigay ayaa tidhi walaal anigu shabeeno si shaqo tagayo ana diyadan boogayni waxa la dundumiyay ayaa waxaan ka hablii fanaaniinta meel ku buuqsano la qaarna la laayay qaarna la xidhay labadeedna waxaan ku leexday wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska halkay ahaan jirtay halkii markaan ku leexday waxaan ururiyay arkiifyo badan iyo taariikh badan oo ay leeyihiin Cabdilaahi Qarshe Gaari raawi سافي دعاء جدود عروة دكتي ولا كنت سهل جميت معنا عدد كبير طريقة داتسن أو صورين كل دقيقين. وانقرت. وانوريو وصابر مركز صابر قارم كشبكة سعرين. لما دخلنا تجارة ورافضنا المرأة صاقعة. طبعا لو حن حبليبا ورسحن كل شيء يعني سنة ورا ما هينبغى لديه التاريخ برانك داتسن داعي ماشي للدنيا دوننا. حبلي ما كان بشيء قرد الحريق ما تشيلني وحلا حلو سنة عاب مرية ناس ولا نقول حدي. طبعا ما ورد الله حن بالبريس لو يحيي ذاك هذا التاريخ من البلد الجوينة فمكي سوغلاتي سومالي للعي. أنا مو ظلمنا. ما كان مو ظلمنا من هو تاريخ ده كان كده الحس صار كهايدنا عسكر جوري سوبر نبص هذا الشيء ما كيجو الرئيسي عيدا الماشى اللي كاني إذا كل الحد على البلد. كل شيء أنا ويانا ولا خاطر مركبة. اسمه فنانة. فنانة سبنا بنيرد المكسوك عيسايا. إذا أنت راح داير يا نبي أقولك كنت نحن مثلا بديه بالبلور تاجي بانكوري ما هو تلقاتي الناس اللي هذا كوني الشيء. أنا يوم إحنا سوق كردحنا كذا درب إحنا كردحنا وإحنا نلبي هذانا. هي. في بعض الجراعة عن كرساسة نوتي تشيدية دي هذه البسوخة. دبنا أنا مرة بالعسل يا هبلي سيد الله قال سأل عليه مرة بالعسل عشان قصة أنا قلنا ما حد بعصر ده بشيء وإحنا دجاني يا مدير الدنيا سعر ده كان رقم يا ده كان رقم ده دبنا نقول كويا أي عسكر يدوم صالح بسليها على عيد الكوتي وإحنا دكاجي يدوكاجي يفهمكاجي من التلاوة ما بيجي بانكو داربي سكول كذا دربتنا والله فنانين تكرر والله لا أنا أقول قاعد يجيب خمسة فري قاعد يجيب كذا قاعد كمان أذكر نوي صدري وأنا الدنيا وأنا يعني أنا قبلي بالكي بوجي كذي كان عندنا نقول حي وأنا للاوي وعن كودار بيدي مساكين تاعي في فنانين تيجي الدنيا ما أنت مدح ذوك الله ذوك رعادة للاوي وعن صاحب السعيد يا محيا ذي أيدي تقول وحيد إشراء مقالة كده إشراء أنا أدي حسستي وأنا مودي نايلا هذا ناقول قدرتي نقوم نشرتو ناقول حدي حتى نقوم نشرتو ولي أنا كبير كان كوينا إحنا ما هنا لما ما قلنا نحب عائلة سعر علي يقول حدي أقولي من متى شفت سمان لا بقعد من ناحية قاعد على ما يدقي ما كان ولا كان عندنا نواقع أنا المقالة لما ما تبي تدخل من الشباب كو وحلا وإحنا كده مجرى بير كان كوينا سيديو أي حاشي مقصتنا ما دخل يجي شوي ما كان تقول كذا نقول عايز حافظ قيمة بدنا نقولكم ما أنا كذا يتمنى عسكري كذا سو سلي قد هذه حرم من كذا بلا بدي عسكري كدلي يدا معاري دي كذا وانا عايز تلفون كذا وتشبي لما يعبوا كذا سلي ده أيوه محيط تلفون واحد ذاك عادي تلفون ذاك عادي دي بعطوه بنا صار مرتي رونا معاني دي كذا أكتر وانا قلت كسلي قد هذه سلي كدلي أو لو عايز يدا صدها taasi dhegeystayaal waxay ahayd degan nuur xuseen oo khadka telefoonka igu waramaysay gabagabadiina ubax daahir ubax fahmo oo iyaduna ka mid ah fanaaniinta caanka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in jugo
aad u weyn la soo gaarsiiyay Ubax Fahmo waxay kale oo ay intaasi ku darartay in mobilkeedii iyada oo arkaysa ciidamada boolisku ku joogsadeen isla markaana jajabiyeen waana tan iyadoo arrimahaasi iyo kuwa kaleba ka hadlaysa waxaan u qabaa erka burbuiga ka dhuftay madaxa hirbu nala dhacay waxaan ku meel loo fayo ma jirto intuu markuu saldhigay gelin inta ay qabtay hore igu tuuraanigoo qalan saldhiga dhexdeedana intay noogu soo galeen bay ummadii xidhnayd naga qabatay ay inay nagu dhex dilaan doonayeen anagoo maxbuusiin oo iyagii u xidhan marka waa askarta un dadkan aad leedahay wayna askartii weeyaan caruurta ardaydii oo soo maxay ka masaaxiib u soo baxday iskuulka faarax oo marka soo dareertay ilma aan gawda laga saarin ma jirto laamiga dhulka soo xamar laga saarin gawday ka saareen waxaad sheegtay inaad qalan tahay ma horaan markaasi aad u qalnayd ubaxay walaala dailmaa laygu qalan baa lai tiri waa dhulka lai goglay marka moobiladina intuu qaaday ka taliyaha meesha jooga ayuu ku tuntay uu yidhi inaad saxaafadda u warantaan baad doonaysaa uu ku tuntay uu jajabiyey anigii Saare Cali idinkoo arkaya annagoo arkayna intuu rigaaxay buu jajabiyey oo tuuru inaad saxaafadda u warantaan baad doonaysaa annaga halka ka saxaafada ka mas-uula annagana saan doona idiin gelayna naadeeda daran baa jirine adeed baa miidiin yeelnaa dib xukuumad soo eegmaysa agaasimaha guud ee noo yimaan kulli waa maxaanad wadaa يعني ملك الشمك سبورتسكا مدحوينه وحيري 80 معركة كرو ما نرغبه حكب حان معايا ايطاي مال الناس كلها يمنى تسي لا ولا هذا ما يشور إذا دعبيه وعنط معايا تادو الرسال